Diblomacy Media ayaa daawaneysaan. Soo dhawaada. Xilli wali ay taagan tahay xiisadda gobolka Geeska Afrika uu ka dhaliyay damaca Itoobiya ee badda casbaadi goobkeeda, kuna wajahan Eritrea. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo taliyayaasha ciidankaas ugu sarreeya ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay si toos ah sare ugu qaaday hadaladooda la xiriira si ay u tiigaysan lahaayeen biyaha badda cas, gaar ahaan hadda oo ay si dhammaystiran ugu jeesteen dhanka Eritrea oo ay sheegeen inay ugu mudan tahay goobaha ay tahay inay badda cas ka gaaraan, gaar ahaanna dekedda magaalada Asaba. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayaa mar kale ku celiyay doonista Itoobiya ay ku doonayso helitaanka badda cas. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid ay qasab tahay diiradda la saaro oo Itoobiya ay gaarto midnimada ugu yeeray in ay badda cas oo 30 sano ka hor ay haysatay. Khudbadiisa wax yar haddii aan turjunno. Dhammaan golaha shacabka, arrin inaad diiradda saartaan u baahan ayaa jirta. Annagu waxaan aaminsannahay in ay badda cas Itoobiya u tahay su'aal la xiriirta sharci ahaan, taariikh ahaan, deegaan, dhul iyo dhaqaale ahaan. Waa mid aan xaq u leenahay. Su'aashan dadka qaarkood bari in laga jawaabo ayay rabaan. Koox kale, annaga marka aan xilka qabanno ayaan bilaabaynaa, ee hadda looma baahno ayay qabaan. Labaduba looma baahna. Itoobiya halgan 30 sano qaatay ayay badda cas isticmaalkeeda ku weyday, laakiin si ay ku hesho badda cas 30 sano oo kale inay u baahan tahay lama ahan, mana qaadan doonto. Qaab degan oo nidaamsan oo nabdeed in lagu wajaho badda ayaa loo baahan yahay, ayuu Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u sheegay golaha. Isagoo sii wada hadalkiisa, waxa uu sheegay arrinkan in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye in Itoobiya ay weyday badda cas cidii go'aamisay ahayd. Kabineetka xilligaas jiray ayaan ku jiray. Dukumeentiga xilligaas oo dhan ayaan baarnay. Wax dukumeenti ah oo badda lagu bixiyay ama heshiis ah waa laga waayay. Waxaan u dhaqaaqnay golaha wakiilada, iyaguna waxba kama ogeyn arrinka iyo go'aanka cadeynayana lama hayo. Haddii la oran lahaa shacabka Itoobiya ayaa afti u qaaday oo iyaga ayaa bixiyay, waan wada joognay inteena badan xilligaas. Haddii shacabku aysan ogolaansho ku bixinin, mas'uul iyo gole aysan go'aamin, go'aanka Itoobiya ee badda cas ay ku weeday xaguu ka yimid. Qaabkan hadda badda cas ku weynay in nidaam sharci ah uusan lahayn waxaa cadeynaya hal wasaarad ama xafiis oo arrinta ogaama jiro ama loo igmaday. Hal waraaq oo sharaxaysa sida badda Itoobiya ku weyday ma jirto. Waa la soo heli waayay. Su'aal noocaas ah in meesha la keeno qalad ma noqon karto. Waa inaan isweydiinaa arrinkaas. Haddii ay cadeymo jiraan ha la keeno. Haddii kale, waa arrin qadiyadeed iyo mid go'aamin karta masiirka dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu ka hadlay wadahadaladii dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea ama Afwerki, iyo isaga oo uu sheegay in diiradda lagu saaray arrintan intii xiriirka labada dhinac uu fiyooba. Markii Addis Ababa iyo Eritrea heshiiyeen, waxaan aadnay Asmara. Kadib booqashadii labaad, madaxweynaha Eritrea ayaa yimid Addis Ababa. Markaan Eritrea ku noqonnay, madaxweynaha waxaan ka dalbay inuu Casab geeyo. Waan aaday, waan soo booqday Casab, waxaan kaga hadalnay arrimaha dekedda. Arrintaas annagoo Eritrea joogno ayaan ka wada hadalnay oo doodeeda bilownay. Midda kale waxay tahay buuggii aan qoray ee Madamar, waxaan si cad ugu xusay arrinta Casab. Weliba buugga waan u diray asaas iyo kabinetkiisa. Way ogaayeen ajandaha badda cas inaan waday. Si aad ogtihiin dhowr sano ka hor waxaan asaasnay ciidanka badda. Kulli koobkan biyaha ee aan cabayo gelimayaan bad ayaan u wadnaa. Isbeddelka ka hor, annaga oo aan xil haynin ayaan ka hadli jirnay arrimaha badda cas. Awood saas amaana lahayn oo cid naga gurta ma jirin. Hadda waan ka hadalnaa, waan ka hadli doonnaa. Qaab nabad ah ayaan ku rabnaa. Laakiin xilligaas waxaan dhisnay waddada isku xirta labada dal. Waxay xukuumadda Eritrea noo sheegeen in Casab dekedeedu xoogaa hagaajin ah u baahan tahay. Markaas ayaana generator iyo wiishash ka keenay wadamada aan isku fiicannahay. Dekedda Casab ayaan geynay. Markii halkaas la geeyay Eritrea, way iska soo celiyeen qalabkan u geynay. Markaas ayaan fahnay dhankeenna
inuu dadaal ka socdo, waase Eritrea shaqadana la wadin. Waxaan u soo bandhignay generator-ka ha isticmaalina, waa qaali aan koronto bilaash ah idin siino. Suga waan ka soo fakaraynaa ee Eritrea noogu jawaabtay. Casab waxaa ku yaala guryo dhisan oo daaqad iyo albaab aan lahayn. Magaalada aan dhisno oo aan dhaqaalaheena kor u qaadno, abadan ayay dhaheen taas Eritrea. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu ka hadlay sida Itoobiya iyo Eritrea ay uga wada faa'iideysan karaan marka laga hadlayo badda cas oo Itoobiya aysan lahayn laakiin Eritrea la doonayo inay ka qaadato. Dhanka Eritrea, fursad walba aan u soo bandhigno jawaan aan caddeyn ayay u gooyeen xiriirkii iyo fursadihii wada shaqaynta. Isla markiiba waxay xireen xuduudihii dhanka waqooyi iyagoo xitaa dagaalka gobolka Tigray qarxin. Shacabka Eritrea waa walaalaheen. Inaan wadajir u wajahno ayaan doonaynaa. Inaan wax u dhinna ma doonayno. Annagu fikir iyo qorshe dagaal aslanba ma lihin. Maantay waxaan hortiina ka sheegayaa isticmaalka badda cas ee Itoobiya waa mid aan laga gorgortamayn, maadaama ay tahay beesha caalamka, Maraykanka, Shiinaha, Afrika iyo Midowga Yurubba na kala dhexgala oo qaab nabdoon aan bad ku helno. Annagu in la dhexdhexaadiyo ayaan rabnaa. Haddii kooxahan dalabkeena ay fulin waayaan oo ay ka cagajiidaan, arrintaas intaas way ka gudbaysaa. Tallaabo kale in la qaado ayay noqonaysaa. Taas mid aan hadda doonayo ama aad idinku doonaysaan ma ahan. Waa mid si dabiici ku imaanaysa. Hal maalin badda cas kumaanan weynin, hal maalinna kuma helayno. Nimanka hadda oranaya dowladda arrimaha badda cas waxay gabaad oga dhiganaysaa fashilka gudaha ka haystaa. Waxaan oran lahaa in arrimaha badda la isweydiiyo ma ahan arrin aan ku gabanayno. Hadhow inaad tiraahdaan ayaan ka baqayaa badda cas waan helnay oo marka aan soo dhicinno aad sacabka u tuntaan. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay Itoobiya si nabad bad la'aan inaysan ku ahaan doonin. Milyan jeer ayaan idin xaqiijinayaa Itoobiya bad la'aan ma ahaan doonto oo isticmaalka badda lagama xiran karo. Ciddii doonta ha rabto ama aysan rabin. Wadamada ka xun ayaa jira. Itoobiya haddii ay horumarto oo cabsi meel la fadhiyaan. Itoobiya xagee u koraysaa waaba wadanka labaad ee Afrika ugu shacabka badan. Sanad walba 3 milyan oo bulsho ah ayaa inagu biirtaa. Taas micnaheedu waxa weeye hal dal oo Eritrea oo kala ah ayaa sanad walba dalkeena aan ku soo darnaa. Hadda arrimaha la isla dhexmarayo ee Itoobiya iyo Eritrea halkee ayay ka yimaadeen? Su'aasha ah in la isweydiiyo ayaa habboon. Markii hore TPLF inay gobolka Qatar ku tahay ayaa la aaminsanaa. Haddii aan laga takhalusin in gobolka uusan xasilin ayaa la ogaa. Heshiiskii Pretoria kadib fursad ayaa la siiyey si ay gobolkooda u soo kabaan. Way ka dareen oo dhanka Eritrea ayba ka soo safteen. Marka kooxdan ayaa qaska wado oo inaan nabadda gobolka dhicin way ka shaqaynaysaa. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo hadalkiisa sii wato wuxuu sheegay in Eritrea ay walaalo yihiin. Dowladda Eritrea waa walaalaheen. Talo iyadu waxa weeye jidka hubka la mareeyo ha noqonina, dal dhisan noqda. Kuwa maanta gacan yaraha idin ah mar uun way soo hanuuni doonaan. Taariikhdiina ha iska haleynina. Wax waliba waan la soconnaa oo waan aragnay. Dadka la tahriibinayo in la joojiyo waa iga talo. Ciddii sharciga ku xadgudubta mid la mid ah ayaa loo soo dhaweynayaa. Ganacsiyada sharci darrada ah iyo falal dambiyeedyada inaan iska dayno oo laba wadan oo deris ah aan u dhaqanno ayaa habboon, ayuu yiri Abiy Ahmed. Faarax Cabdiqaadir ayaa turjumaadaasi diyaariyay. Diblomaasi Miidiana.